su-aasha igu soo noqnoqoto waxay ahayd ilmahayga naaska kama dhargo mana hurdo oo hintiisana way badan tahay habeenkii aad ay ugu soo kacaa. haa walaashayda, waayo cunuga wuxuu usoo kacay waxay tahay cunuga hurdo ma helaayo, cunug gaajaysan ma seexan karo soo maaha. marka cunuga sababtaas ayaa ugu wacan inuu usoo kakaco. assalaamu calaykum waraxmatullah. asxaabta qaaliga waana islaama dhammaan kanaalkayga ku xiran, soo dhawaada ayaana leeyahay. hadday markii koowaad ay kuu tahay fadlan ha iloobin subscribe inaa ii saartid, sheegareen dhankaada weeyaan, walaalaha kale uga faa'iide, like-na dhiirigelin ayay tahay adigoo mahadsan. maanta waxaan ka hadlaynaa sida hooyada ilmaha ay u nuujinayso oo saxda ah, meeqa daqiiqa ee lagu talagalay ilmaha in hooyada ay nuujiso iyo waxyaalaha looga baahan yahay hooyada inay sameyso. walaashayda intaan nuujiska bilaabin waxaad u baahan tahay kow diyaargaleen inaad sameysid, meel adig ku go-an waa inaad haysatid aa cunuga ku nuujinaysid oo comfortable ah. comfortable waxaan ka wadaa meel adig ku qaas ah oo yacni markaa fadhiisatid aad dareemaysid maasha allah meeshan yacni meel aad ka daaleysid ma ah, meel waqti dheer aad fadhiisan kartid inay kuu noqoto. matalan hadduu kursi yahay inaad haysatid kursi aan ugu hasaaratid, barkin oo dhabarkaada aad dhigatid iyo mid aad ma aragtaa jaqalkaada aad saaratid. intaas dhan ayaad u baahan tahay. waxaa loo baahan yahay markaa fadhiisatid oo cunugaa nuujinaysid meel muddo 30 daqiiqo aad fadhin kartid. laakiin hooyada hadday dhahdo naaskaa nuujinayaa meel adiga aada comfortable ka ahayn aad fadhiisatid 10 daqiiqo iska day 5 daqiiqo markaa fadhidid waa daaleysaa, cunugii naaskii kuma sii wadaysid. marka waxaa keenayaa ilmaha yar marka waxaa keenaya inuu ooyo uu markaasayta ma aragtaa hurdadana uu kugu wareeriyo uu soo kakaco dhowr jeer. waayo macnaheedu waxay tahay cunugii naaska sidii loo rabay maada u nuujinin, cunugii yacni sidii naaska loo rabay muu u cabin, cunuga gaajo ayaa haysaa weli. cunuga waxaa la rabaa inuu naaska uu ka dhargo ilaa muddo 30 daqiiqo waa inaad la fadhidid meeshaasayta aan ku leeyahay aada ka daaleynin oo yacni ooda comfortable ku tahay inaad u fadhidid weeyaan. kow midka labaadna waxaabay habka naaska u nuujinaysid. daawasho wacan, hadda videoga yar ayaan iisoo geliyey aan rabaa inaan fahansiiyo sida cunuga naaska u nuujinaysid. sidaad u aragtid hooyada naaskeeda ibka marka ugu hore sanka hoostiisa ayay u saartay, kadib cunugii wuxuu isku tijaabinayaa afkii inuu kala furo. afkii markuu kala furo cunugii afka markuu sidaa u kala ballaariyay ayay naaska dhan gudaha u gelisay. marka waxaa la rabaa inta horeo dhan afkiisa ibta inay cunuga gudaha u gasho sifa caanaha naaska ugu jiraan cunuga uu si fiican ooga soo listo. cunugii hadduu naaska kasoo lisan waayo caanaha waxaa noqonaysaa inuu cunugii uu dhargin oo caanihii loogu talagalay inuu ka helo naaska uusa ka helin. marka hooyooyin qaarkood waxaa jira ibtooda ay dhib ay ku tahay ilmaha ay nuugi karin. waxyaalaha qaarkood waxaa jirta oo loogu talagalo oo ibta ilmaha loo saaro oo caag ah oo loogu talagalo hooyada ibta in loo saaro kadib marka cunuga uu naaska oga nuugo. haisdihin walaashayda naaska caano ma ku jiraan, cunuga naaska ma helayo caano cunuga wuu ka helayaa naaska. waxaana la rabaa cunuga isbuucyaasha ugu hore markuu cunuga newborn yahay ama cunugu cusub yahay waxaa lagaa rabaa 8 jeer maalintii inaa naaska siisid. cunuga waxaa la rabaa 30 daqiiqa 25 ilaa 30 daqiiqa ugu yaraan waa inaad la fadhiisatid meel markaa siinaysid. lama raba degdeg, waxaa la rabaa inaa yacni koob biyo aad soo qaadatid oo is ag dhigtid meeshaa fadhiisanaysid saan kuu sheega comfortable ee ahaato ma aragtaa meel aan degdeg ku jirin, meel aad cunuga waqtiga siinaysid. waxaana la rabaa cunuga inaa markaa naaska siinaysid oo aadana ugu fiican tahay skin to skin. cunuga inaada ma aragtaa dharka ka bixisid, adigana ma aragtaa shaarkaada hoostiisa aad gelisid cunuga jirkaada iyo jirkiisa ay istaabtaan. taasaa aada muhiim ay u tahay. teeda kalena waxaa hooyooyinka cusub aan rabaa inaan u sheego cunuga demoo aa caanaha siinayso demoo caanaha naaska keenayo. ma aragtaa cunuga hadaad markasta aad naaska yacni aad u badisid oo siisid naaskaada caano ayaa yeelanayaan.
badi waxay dhahaan gabdhaha oo TikTok igu soo qoraan naasahana caano kuma jiro, naasahana maxaa caano ku kordhin karaa. waxaaba cunuga inaad naaska u badisiin. haddaa cunuga moo naaska aasiisin, damoo naaska siinaysa damoo caana soo galaya. cunuga markuu kaa jiifo waxaa sameynaysaa pamka soo qaadaysaa, cunuga waa lisaysaa. waxaa jira waxyaalo loogu talagalo oo naaska looga liso cunuga. marka waxaad sameyn kartaa cunuga markuu kaa gam uu jiifo adiga waxba ma haysid, soo qaado kan lagu liso, fadhiiso lis. waayo damoo aa lisaysid damoo ma aragtaa caano ay soo galayaan naaska. waxaa jira shaxiya oo dabiici ah oo loogu talagalo hooyada naaska markay nuujinayso ay cabayso iyadana, oo naaska caano badan u keenayo. uu kamid yahay funnel seed waa wax oo miro ah oo u eg geedka la dhahayo komuun, oo xawaajiga la dhahayo komuun ayuu ekahay, laakiin komuun ma aha. hadda ka hor TikTok waan ii soo geliyay, waan igu soo sharaxay. kaas ayaa wax naaska caanaha wax badan u keenaa. sabaayadoo kale way keentaa. cuntooyin badan baa jirtaa halkan aan kusoo koobi karin, oo hadda haddaan dhaho waan bilaabayaa videoga igu dheeraanaya oo hooyada naaska caano u keenayo. marka asxaabta videoga halkan ayaan kusoo koobayaa. insha Allah waa inoo videoga dambe. sheegareenka waa dhinaciina, hooyooyinka kale insha Allah u sheegareeya. subscribe-kana ha iloobina inaad saartiin.